140 qoys agoomaha maanta loo qaybiyay cunooyinkan isugu jira burka iyo bariiska ayaa waxa uu soo diray jaaliyadaha kala degan magaalooyinka Cardiff UK iyo Perth Australia. deeqdan ayaa waxa guddoonsiinayay dadkan agoomaha ee isugu yimid xarunta agoomaha ee ku taala xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. maamulka xarunta agoontaasi ayaa wuxuu ka warbixiyay deeqdan ay soo direen jaaliyadahaasi kala jooga, iyagoo sheegay maamulka xarunta agoonta ee magaalada Laascaanood in jaaliyadahaasi ay yihiin had iyo jeer kuwa soo caawiya agoonta ku jirta gudaha magaalada Laascaanood xarunta weyn ee magaalada Laascaanood. maamulaha xarunta agoonta ee magaalada Laascaanood waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa jaaliyada Perth ee degan wadanka Australia oo iyadoo had iyo jeer ka warqabta xaaladda agoomaha iyo nolosha ay ku jiraan. 140 qoys ee maanta loo qaybiyay raashinkan oo ka kooban qoysas agooma ayaa waxay si weyn uga faa'iideysanayaan cunooyinkan loo qaybiyay, iyadoo dadkan ay isugu jiraan dad aad u da'yar, iyadoo tirada agoomaha ee ku jira xarunta guud ee agoomaha ee magaalada Laascaanood ay kor u dhaafayso 300 oo agooma oo iyagu halkaasi ku jira. ayaa waxay sheegeen in laga codsanayo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan in ay soo caawiyaan dadkan agoomaha iyagoo u baahan caawinaada. 140 qoys deeq loogu talagalay oo raashina ayaan halkan maanta ku bixinaynaa. waxay naga soo kala gaadheen inta ugu faraha badan jaaliyada wadanka Australia magaalada Perth oo muddo dhowr iyo 10 sano agoonta la shaqeynaysay taakulaysay in badan waxa ku bixinaysay xarumaha agoonta ayaa ugu badan oo 2130 na soo gaarsiisay. waxaan leenahay ilaahay khayr siiyo aad iyo aad baynu mahadsan yihiin jaaliyadaasi muddada faraha badan ee ay agoonta soo taakulaysay si joogto ah ugu bixisa sanadkiiba dhowr jeer inay maxay agoonta wax soo gaarsiiyaan. waa jaaliyada kaliya ee sida tooska maxay muddo dheer oo xidhiidha agoonta ula soo shaqeynaysay. waxa kale oo iyaguna na soo gaarsiinayay sanadkiiba mar walba bisha Ramadaan gabdhaha jaaliyada magaalada Cardiff oo $1 na soo gaarsiiyay hadeer sanadii hore oo dhan na soo gaarsiin jiray xilliga fitriga. iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin na soo gaarsiiyay oo horena dhowr jeer agoonta u xusa oo mar walba ka warhaya gabdhaha degan jaaliyada Switzerland ee gobolkan u dhashay oo na soo gaarsiiyay $400. iyaguna waa maanta raashinkan aanu qaybinayna ay ku jiraan. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. dhowr jeer horena waa nala soo xiriireen gabdhahaas maxay wadanka Switzerland. aad iyo aad bay u mahadin xarunta agoonta ugu weyn goboladan inay ku taalo dadka ka warhaya. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. inta aan ka warhayna waxaanu go'aysiinaynaa dadka ku jira waxa weeye dad magaaladan oo kaliya ma aha, waa dad gobolada oo dhan la isaga keenay agoontu. maxay haydeen lana doonayo warbixin badan in loo hayo xagga waxbarashadooda taakulaintooda waxa weeye ka warhayn wax ku bixin jiray. ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr allah siiyo, ilaahay jannada wallahu gabaal gudo maalkooda iyo wixii waran allah barakeeyo. dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax ku soo darsaday sadaqadan yaa saddexda gobol aan sheegay u dhalanna iyagana way mahadsan yihiin, khayrna allah siiyo. waxa laga yaabaa ku jira dad kale kuwaan weli deeqdooda soo gaadhayna ha dadaaleen oo ha ogaadeen in baahidaasi ay jirto, ha ogaadeen oo dadka mas'uuliyiinta ay gaarsiin doonaan. waxaan ilaahay barakaha u geliyo annaga ilaahay waqti noo siiyo mid walba waan uga mahadcelinaynaa. waxaan doonaynaa inay weli iyo hadda wixii hawlka madal weli waa hogadii inay nala garab taagnaadaan oo ayaan weli naga daalin ayaan weydiisanaynaa walaalaha iyo Cabdi Kariin Nolol, Somali Channel TV, magaalada Laascaanood.